mudaharaad ballaaran ayaa wuxuu ka dhacay degmada Taleex ee gobolka Sool isla markaana lagu diidanaa ciidamada Somaliland oo xoog u isticmaalay mudaharaadayaasha magaalada Laascaanood kuwaas ay ku geeriyoodeen 2 qof halka 8 kale ay ku dhaawacantay dadkii ka soo qayb galay mudaharaadayaasha degmada Taleex ayaa ku baaqay maamulka Somaliland inay joojiyaan xoogga xad dhaafka ay u isticmaalayaan dadka shacabka ee ku mudaharaadaya magaalada Laascaanood dadkan oo badnaa haween ayaa waxay ku dhawaaqeen eray ay ku diidan yihiin ciidamada Somaliland waxaan adduunka caalamka u sheegnaa anaga iska celina daqada naga haysan maayaan laakiin nala ka gardaraya saah lagu ogaado anaga wadana ka haynaya ma jirto daqada mudaharaadkan degmada Taleex ka dhacay ayaa noqonay kii ugu horeeyay iyagoo dadkii mudaharaadkan dhigay ay ugu baaqeen maamulka cusub ee Khaatumo inay ka arrinsadaan sidii wax loogu qaban lahaa dadka ku sugan degmada Taleex oo xilligan xaalad qalafsan ku jira waxa lagu wadaa saacadaha soo socda inay ka hadlaan maamulka cusub ee Khaatumo State mudaharaadkii dhaliyay dhimashada 2 qof iyo dhaawaca 8 kale oo 3 kamid ah ay xaaladooda culus tahay maxamed shaqalle Soomaalisat